السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلامينا دمان أرضيدا كحيران جنالك هدف شو وحيدين لنا هاي هبين وناكسن جمعة وناكسن أرضي كستا وقتي أي أطهي أيان كسلامينا أرضي كسو دوادا سيدات شاشداد وجيدان caawa waxaan ugu talgalnay inaan uga faa'iideyno ardayda Soomaaliyeed khaasatan ardayda iskuulkeena Al-Hayaat Primary and Secondary School fasalka form 4 waxaan ka shaqeyn doonaa anigoo ah Ustaad Cabdi Naasir insha Allah ardayay qaybta koowaad waa goobagelin xarafka saxda ah ayaad waxaad gelinaysaa goobada qaybtan ardayay waxa saaran 20 dhibcood arday kastan waxa lagu baahan yahay in si maskaxiyan oo aqliyan oo su'aasha u akhriya kadib jawaabta uu ka doorto insha Allah su'aasha koowaad waxay u dhici doontaa sida soo socota waxa lagu yiri geologiga handasada waa cilmiga quseeya ba waxa lagu yiri ismaha guryaha ta barashada carada ja xeerarka kala duwan ee waxbarashada waxa lagu yiri ilaha tamarta dabiiciga soo marka jawaabta saxda waxay noqon doontaa arday xarafka ba oo waa dhismaha guryaha okay su'aasha labaad arday waxa lagu yiri waxa lagu qiyaasaa da'da dhulka ku dhawaad ba waxa lagu yiri 2,000 oo milyan sano ta waxa lagu yiri 3,000 milyan sano ja waxa lagu yiri 4,000 milyan sano ha waxa lagu yiri 5,000 oo milyan sano jawaabta saxda arday waxay noqon doontaa iyadana xarafka ba oo ah 2,000 oo milyan sano ayay noqon doontaa jawaabta saxda ah arday su'aasha saddexaad arday waxay u dhicaysaa sida soo socota gobolada kulaaleyda ah waxa ay fidsan yihiin golobadka waqooyi iyo kan koonfureed inta u dhaxaysa arday jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka xa oo 5 degree 23 degree waqooyi iyo koonfur ay noqon doontaa waan xarafka xa ay noqonaysaa xarafka xa su'aasha xigta arday waa su'aasha afraad roobabka gobolka Badhaalaha waxa uu kordhayaa xilliyada ba waxa lagu yiri jilaalka iyo xagaaga ta waxa lagu yiri guga iyo deerta ja waxa lagu yiri jilaalka iyo guga xana waxa lagu yiri deerta iyo xagaaga soo marka jawaabta saxda arday waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah guga iyo deerta waxaan filayaa inaad fahanteen ardayay su'aasha shanaad waxay u dhici doontaa magaalo madaxda gobolka Bakool waa magaalada ba waxa lagu yiri Bu'aale ta waxa lagu yiri Qansax Dheere ja'na waxa lagu yiri Xudur xana waxa lagu yiri Jalalaqsi marka jawaabta saxda ah idan waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah Xudur ayay noqonaysaa ardayay su'aasha shanaad arday waxa lagu yiraahday ama lagu dhahay waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya filqsanaanta dadka waxa kamida ba waxa lagu yiri ilaha biyaha ta waxa lagu yiri xirfada ja waxa lagu yiri macdanta xana waxa lagu yiri cimilada soo marka arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah xirfada ayay noqonaysaa su'aasha toddobaad socdaal aqooneed waxa loola jeedaa socdaal ba waa socdaal warbaahinta ta waa socdaal manqulqul ja socdaal cilmi baaris ha socdaal siyaasadeed soo marka ardayga jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah socdaal cilmi baaris ayay noqonaysaa inaad fahanteen oo badina su'aasha xigta ama numberka 8aad waxa lagu yiraahday Soomaaliya waxay dhacdaa inta u dhaxaysa loolka ba waxa lagu yiri 2 degree koonfurta 12 degree waqooyi galbeedka
ta waxaa lagu yiri 3 degree koonfurta 14 degree waqooyi galbeedka ja waxaa lagu yiri 5 degree koonfurta 15 degree waqooyi galbeedka xa waxaa lagu yiri 8 degree koonfurta 18 degree waqooyi galbeedka soo marka jawaabta saxda arday waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah 2 degree ayay noqonaysaa xarafka ba ayay noqonaysaa su'aasha sagaalaad arday waxaa lagu weydiiyay qalabka lagu cabiro cadaadiska gibilka waa ba waxaa la yiri heerkulbeeg ta robeeg ja waxaa la yiri hydrometer xana waxaa la yiri barometer soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka xa oo ah barometer ayay noqonaysaa arday waana xarafka xa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen su'aasha tobanaad dhanka goobagelinta waxaa lagu weydiiyay xayawaanka dudubiga waxa uu ku nool yahay gobol cimileedka ba waxaa lagu yiri badda dhexe ta waxaa lagu yiri cirifka qaboobaha ja waxaa lagu yiri lama deegaanka xana waxaa lagu yiri mansuunta jawaabta saxda arday waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah cirifka qaboobaha ah ayuu ku nool yahay xayawaankaasi waa xarafka ta soo marka qaybtani waa qaybta labaad waxaa lagu yiri waa isku aadin xarfaha ayaad isku aadin doontaa su'aasha koowaad iyadan waxaa lagu weydiiyay qaybtan arday waxaa saaran 10 dhibcood ayaa saaran sidaad wada jeedaan gaadiidka dhulka waxaa kamid ah waxaa ku aadeysa gaadiidka dhulka waxaa kamid ah xagalaya numberka 3 ama tariinka ayaa galaya inta waxa ku qoraysaa marka arday number 3 ayaad ku qoraysaa number 3 ayaad ku qoraysaa soo su'aasha labaad awoodda dawladda waxaa saameynta ku leh ama waxaa saameyn ku leh ayaa lagu yiri waxay noqonaysaa arday waxay noqonaysaa ama waxay galaysaa xarafka afarta ku aadan oo ah goob juqraafi ahaaneed ayaa galaysa oo aan xarafka 4 ayaad gelinaysaa halkan su'aasha saddexaad waxaa lagu yiri nooca dalxiiska waxaa kamid ah xarafka koowaad ayaga oo ah madadaalo waxaa galaya madadaalo number 2 ayaa ku aadinaysa oo ah madadaalo 4 waxaa lagu yiri tiirarka gediska waxaa kamid ah arday waxaa kamid ah wax soo saar dheeri ah waxa la yiraahdaa number 5 ayaad gelinaysaa meeshan oo number 5 okay sidoo kale numberka ugu dambeeya waxaa lagu yiraahday waxyaabaha saameynta ku leh tirada dhalashada waxa weeye sababo xagga bulshada ayaa galaysa waan xaraf number 2 ee ka dhigaysa oo ah 3 4 1 5 2 waa isku aadintii weeye waxaan rajeynayaa ardayda inay fahmeen labadaas qayb ayaan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno ardayda dhammaan ardayda Soomaaliyeed khaasatan ardayda iskuulka Al-Hayaat Primary and Secondary School insha Allah qaybta saddexaadna su'aalaha iyo su'aalahan waan ka shaqeyn doonaa hadduu alla idmo intaas ayaan ku sameynaa ardaye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.